bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed haddaan nahay bahda caafimaadka jaamacadda SIU waqtigan oo coronavirus ama xanuunka COVID-19 oo dib u soo ziyaaday waxaana saaran mas'uuliyad gooni ah si aan bulshada u wacyigelin qof walba oo bulshada ka tirsan oo Soomaaliyeed asagana waxaa saaran mas'uuliyad inuu nafsadiisa badbaadiyo si oo bulshada u badbaadiyo ummadeena Soomaaliyeed runtii waxaan u badannahay dad masaakiin ah oo aan ka bixi karin cisbitaalaadka u baahan qofka markuu jiro coronavirus daawada kaliya oo anfacayso markay noqoto COVID-19 waa ka hortag waxaa ka mid ah inuu qofka hadduu awoodo gurigiisa oo ku sugnaado uusan ka bixin ama qofka hadduu yahay dadka nugul waayeelada iyo cudurro qaar hadduu qabo inuu gurigiisa ku jiro dadna aysan booqan wuxuu kaloo qofka samayn karaa inuu meel xiran uusan joogin haddii uu dad la kulmaayo meel furan ay joogto dad meel ay joogaan hadduu joogo ama la kulmaayo sidoo kale waa inuu kala fogaansho sameeyo oo ugu yaraan 2 mitir isku jirsan labada qof iskugu dhow sababtoo ah coronavirus-ka wuxuu ku faafaa neefsiga ama neefqaadka neefsiga qofkan waxay gaartaa viruska la socdo ilaa 2 mitir marka 2 mitir ama ka badan qofka daa u jirto faafitaankiisu ugu yaraanaya waxyaalaha ugu muhiimsan oo kale oo qofka ku yareyn karo faafitaankiisa waa inuu qofka wejigiisa iyo afkiisa xirtaa oo mask buuxa uu qaataa si uu naqaskiisa iyo viruska la socdo oo dadka kale u gudbin karin mask waa inuu mar walba qofka wataa oo dad ag joogo ama bulsho ku dhex jiro mar walba oo meel xiran uu ku dhex jiro talaabada kale oo muhiimkan waxay tahay waa inuu qofka gacantiisa saabuun ama alcohol ku nadiifiyaa mar walba oo contact ama taabasho shay ama qof la sameeyaa calaamaadkaas fudud waxaa la ogaaday oo caddaatay inay yareynayaan faafitaanka coronavirus calaamaadka ugu caansan ama ugu muhiimsan coronavirus waxaa ka mid ah inuu qofka dareemo qandho korjajab qunfac daal badan madax xanuun caan wuxuu ku yahay coronavirus ama calaamad u gooniya badan ah inuu qofka waayo dareenka urka ama dhadhanka calaamadda qofka isku arko waxay u badan tahay inuu runtii COVID-19 qabo calaamadda kuu sheegaysa qofka inuu xaaladiisa ka sii xumaanayso ugu muhiimsan waxay tahay qofka hadduu ka cawanayo inuu naqaska dhibaayo naqaska hadduu qofka marka cawanayo micnaheedu waxa waaye wuxuu u baahan yahay kaalmo cisbitaal ama oxygen u baahan yahay qof kasta oo kaalmadaas u baahan waxaa la rabaa inaa cisbitaal ama lala raadiyo coronavirus waxaa isweydiin karnaa yaa u nugul ugu dambeyn waxaa u nugul dadka waayeelada ah dadka nafaqdarada heeso difaaca jirkooda oo dhisneenin dadka uurka leh dadka cudurro hore oo sanbabkooda ku dhacay sida TB-da ama sigaarka oo sanbabkooda dhaawac hore gaarsiiyey iyo dadka qaba cudurrada difaaca hoos u dhiga sida HIV-ga sida sokorta iyo waqti dheer dadka cudurro la jiifay dadka oo dhan way u nugul yihiin waxaa rabaa si gooni in loo karantiilo ama guryaha loogu hayo lagana ilaaliyo dadkaas dhammaan bulshada Soomaaliyeed haddaan nahna bahda caafimaadka waxaan ugu dardaarmaynaa in tilaabooyinkaas aan hadda sheegnay ay qaataan oo ka mid tahay inay kala fogaansho sameeyaan mar walba khaasatan dhalinyarada dadka ugu badan isku imaado waa dhalinyarada si bulshada loo badbaadiyo daawada kaliya hadda waddankeenu heli karno waa ka hortagaas waddankeena ma lahan capacity caafimaad oo dad badan haddii la soo dhacaan isbitaalada lagu daaweeyo ma lahan marka ka hortagaas aan kulli insha Allah sameyno